Hello, iska waran haye. Hi, sidoo kale oo fiicanahay. Where were you xageed jirtay? I had gone to David's house. David gurigiisa ayaan jiray. David gurigiisa ayaan jiray ayuu ku jawaabay wiilkan. Why did you go to David's house? David gurigiisa maxaa u aaday? Because sababtoo I needed waxaan rabay to get inaan soo helo my bookayga inaan soo helo ayaan rabay. David gurigiisa sababtaas ayaan u aaday ayuu yiri. Which book did you give him? Buugee ayaad siisay? I gave him waxaan siiyey my notebook buugayga qoraalka ah ayaan siiyey oo aan kasoo qaadanayay ayuu yiri wiilkan. How did you come from there? Gurigiisa sidee ayaad uga timid qaabkee? I came from there by walking. Waxaan xagga uga imid socod anoo soconayo ayaan soo noqday ayuu yiri. Didn't he drop you off? Miyuusan kugu keenin gaari miyuusan kugu keenin? No maya, he didn't drop me off. Gaari muusan igu keenin halkan. Drop off waxaa loo isticmaala markii gaari uu qofka kugu keeno. Was he alone? Keligiis miyuu ahaa at home guriga? His mom hooyadiis was also there ayaa la joogtay. His mom hooyadiis was also there hooyadiis ayaa la joogtay. Where did David used to live before this? David xaguu ku noolaan jiray hadda ka hor? He was in New York. Wuxuu joogay New York ayuu joogay David markii hore. Wuxuu ku noolaan jiray New York ayuu ku noolaan jiray David. When did his family shift here? Goormee familkiisa halkan usoo guureen? They shifted here waxay halkan usoo guureen 3 months ago. 3 bilood ka hor ayay halkan usoo guureen qoyska David.